golaha horumarinta qorshaha qaranka Soomaaliyeed ayaa maanta shirkooda caadiga ahaa ee bishiiba mar ay isugu yimaadaan ay maanta waxa ay ku yeesheen magaalada Muqdisho kaas oo ay ka soo qayb galeen wasiirada qorshaynta ee dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo dawladda dhexe waxaana looga hadlayay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin hanaanka wadajirka ee fulinta mashaariicda dalka ka socda iyo sanadkan saddexda qodob ee ugu muhiimsan dawlad goboleedyada in la fuliyo oo looga doodayo shirka agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta ee dawladda federaalka Cabduqaadir Aadan Maxamed ayaa faahfaahin ka bixinaya shirkan 2018 ka dawlad ahaan heerarka kala gedisan ama heer dawlad federaal oo dhexe ama heer dawlad goboleed ha ahaato maxaa la qaban karaa oo suuragal ah sanadkan 2018 taasina isla meel dhignaa rabna hadaan ilaahay ma dhihin waxa kale ayadana muhiim inoo ah wax la dhaho hanaanka wada hirgelinta oo ah in wasaaradaha shaqada leh tusaale ahaan heerarkooda kala gedisan mashruuc kasta oo dalka ka fulay inay qayb ka noqdaan fulintiisa waa waxyaabaha muhiimka ah oo maanta meesha loo fadhiyo in goolhu isla fiirsho wasiirada qorshaynta ee dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda dhexe ayaa ka warbixiyay dadaalada ka socda maamuladooda oo ay ka mid yihiin wax ka qabashada abaaraha iyo mashaariicda ka socda qaabka loo fuliyo ayagoona bogaadiyay shaqooyinka ay wado wasaaradda qorshaynta halka mashaariicda dalkan waxa la yiraahdaa Somali-led Somali-owned bay dhahaneen warmarunba maynaga iskale mashaariicda hogaaminayna haday tahay in mashaariicda aan leenahay hogaaminaynana waa in result ka soo baxaan waxa aynu rabno waxa la rabaa marka inaan u aragno si serious ah oo run ah wadankan yaa iskale wadankan anaga iskale iskalaanshaha aan iska leenahay hawshiisa sidaas in loo qabto la rabaa dawladda heerarkeeda kala duwan ama ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dawlad goboleed inay qayb ka qaataan fulinta mashaariicda waxaan wada ogsoonahay in shacabka Soomaaliyeed ay mas'uuliyad ka saaran tahay dawladooda inay helaan waxbarasho caafimaad biyo nabadgelyo iyo serviceedii u baahan dhan inay tahay mas'uuliyad saaran dawladda Soomaaliya kullana wuxuu noo yahay macnaha ii sheeg in aan ku kala faa'iideysano khibradaha macnaha ii sheeg aan wada leenahay waxaa laga yaabaa inaan wax ku fiicanahay waxna ku liito marka in aan xogta isdhaafsanayno waa horumarka ku jira bini'aadanka tani waxa ay tusaale u tahay xoojinta hay'adaha dawladda iyo baahinta awoodda dawladeed ee dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda federaalka waxa ay isla garteen in mashaariicda kala duwan ee laga fulinayo dalkeena Soomaaliya in ay hoggaanka ay u hayaan ama fulintiisaba hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada Cabdirashiid Nuur Ibrahim telefishinka qaranka Soomaaliyeed Hotel Jazeera magaalada Muqdisho.